Shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa magaalada Gaalkacyo waxa ay ka daafurtay laba adeeg oo cusub kuwaas oo ay bulshadu ka faa'iideysan doonto waxaana daafurka barnaamijkan lagu casuumay bulshada qaybaheeda kala duwan. Adeegyadan ayaa waxa ay kala yihiin laba adeeg oo kala ah adeegga Kaabe iyo Kaydso. Adeegga Kaabe ayaa ah adeeg ay shirkaddu ugu tala gashay inuu bulshada caawiyo xilliyada adag waxaana uu ku amaahinayaa lacag deyn ah oo aad isaga bixinayso muddo asbuuc ah. Sidoo kale adeegga Kaydso ay shirkaddu ugu tala gashay inaad lacag ku kaydsato moobilkaaga muddo cayiman 3 bilood 6 bilood iyo waliba 12 bilood si aad u hesho kayd dhaqaale. Munaasabadda daafurka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo, isimo, ganacsato, haween, dhalinyaro iyo cuqaal. salaan kadib xafladan shirkadda noo dhigtay oo horumarka iyo tartanka ah waa u mahad celinaynaa. waxaan ku ammaanaynaa shirkadda tanaafuska iyo tartanka oo horumar la gaaray ah ama gobolka ha noqoto ama caam ahaan sida adduunku maanta uu tiknoolajiyada ugu tartamayo. tiknoolajiyadu faa'iidooyin badanna waa leedahay, khayrna waa leedahay. hadda shirkadda warbixintayna siisay waxaa ku jirtay inay fiber optic-gii dhowaan furayso adeegyadan bacdigood. qaybtii hore oo sanadka ama kwartarka koobaad 2021 ay soo bandhigto barnaamijyada hadda la idin soo bandhigay oo aad aragteen mudanayaal iyo marwooyin waa hordhacii ama bilowgii 2021 waxaa soo socda sidii Somtel looga bartay ama Dahabshiil Group looga bartay inay mar kasta u fekeraan wixii macaamiishoodu ay ku qancayaan oo kula joogayaan macaamiisha ka maqana ay ugu imanayaan. marka barnaamijyadan labada hadda la keenay oo Dahabshiil Group ay si guud u daahfurayso. Kaabe waa barnaamij sidii laga hadlayba kaabaya qofka bini'aadanka mana aha sida u jeedeen inuu ku eg yahay $1 ilaa $100. wuxuu ku eg yahay credibility-ga qofku uu leeyahay iyo siduu u isticmaalo adeegyada shirkadda. hadday ahaan lahayd telefoonka hadalkiisa, hadday sidoo kale ahaan lahayd banking system-ka, ku shubashada lacagta, haysashada e-dahabta. waxaa laga yaabaa inay jiraan dad eligible u ah inay qaataan $10,000, $5,000 iyo wixii ka badan. sidoo kale adeegga kayd yani Soomaali ahaan markaa si kale u turjunto waxa laga yaabaa inay dadku u yaqaanaan hagbad. yani waa adiga naftaada hagbad la gelay. yani hagbadda inay 3 qof ama 4 qof ay lacag meel isugu tuuraan ay wada haystaan commitment ay galaan qof kasta uu bil qaato ay wareegtay bay ahaan jirtay. laakiin markaan adiga naftaada hagbad la gelaya mobilka Somtel adigoo isticmaalaya iyo adeegga e-dahab waxa leedahay waxaan u baahanahay inaan naftayda hagbad la galo 1 sano ama waxaan u baahanahay 3 bilood. bil kasta waxaan dhiganayaa akoonkayga $300 ama $100 ama $10 mana doonayo inaan arko mana la soo bixi karto. sharaf bay runtii ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladda daahfurka adeegyada iyo turitaanka bulshada gobolka Mudug iyo guud ahaan Puntland oo halkan lagu soo bandhigay. runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa inaad adeegyadan ku soo bandhigteen gobolka Mudug magaalada madaxdiisa degmada Gaalkacyo iyadoo Somtel Puntland ka wada shaqeyso guud ahaan gobolada Puntland iyo degmooyinkiisa. inaad doorateen inaad gobolka Mudug iyo degmada Gaalkacyo ku dhigtaan waan idinka mahad celinaynaa. sharaf bay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno. adeegyada halkan aad ka sheegteen oo saddexdaana waa runtii waa wax bulshada macna ugu fadhiya wax badanna adeegyadii bulshada ka bedeli doona. baratanka iyo shirkadaha ku tartanka horumarka bulshada runtii wax badan bay shacabku soo kordhinaysaa. shirkadaha isgaarsiintuna runtii say u kala dheereeyaan baa adeegyada bulshada isticmaalkooda ugu badan doonaa. arrintaasna waa soo dhaweeynaa shirkad walba oo dalkana maal gashanaysa gobolka ka shaqeynaysa shacabkeeda iyo ummadeeda ana wax ku soo celinaysa. haddii ummadda kaliya wax laga qaato aan wax lagu soo celin runtii lafteeda mushkilad bay leedahay. Somtel Puntlandna waan ognahay oo waa shirkad ka shaqeysa samafalka iyo horumarka bulshada. iyadana waa idinka mahad celinaa. haddii alla idmo waan idinku garab taaganahay wax kastoo aad rabtaan inaad bulshada ugu adeegtaan. arrintaasna
waxa weeye si gooni ah waxaan uga wada fariisan doonaa maamulka qaabkii maamul ahaan iyo shirkadahan aan wada shaqayn lahayn waxaa shirkadda Samtel uga mahadcelinayaa intii ay gobolka Mudug ka shaqaynaysay oo maareeyaha ka ahaa injineer Cumar Cabdulle Ciise injineer Cumar Dheere ilaahay jannada naxariis warta ha siiyo maamulka gobolka Mudug waxa ugu deeqeen internet free ah ilaa hadda iyo ilaa maalintii ay gobolka timid uga mahadcelinaynaa arrintaas aan ku hadlay afka maamulka gobolka Mudug inaan noo fududeyseen adeegga internetka arrinta labaad waxa weeye soo dhaweyn adeegyada cusub ee shirkadda Samtel oo runtii dad badan oo waxa weeye danyar ah kaabaya waa arrin runtii si fiican ama mugle looga fakiray in dadka mushaaraadka qaata 25 bisha mushaarku uu ka go'o ay helaan wuxuun ka mid ah oo hadhow markii mushaarku uu soo dhaco iska bixiyaan runtii waxaan oran karaa waa arrin fikir saliima ku timid waana soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan adeegyada kale oo iyagana waxa weeye internetka maalinlaha iyo asbuuclaha iyo billaha ah iyadana waxa weeye sidoo kale dawladda Puntland waxa ka go'an inay tartanka ganacsiga furan ay soo dhaweyso tasiilaadkii dawladnimadana ay u fududeyso shirkaddan waxay ka mid tahay shirkadaha isgaarsiinta waxa weeye wixii tasiilaad dawladnimo aan hore loo siiyay haddana diyaar baan u leenahay waana soo dhaweynaynaa in lagu tartamo quality-ga iyo tayada cid kasta oo ganacsanaysana ay waxa weeye suuqa ganacsiga Puntland uu yahay mid xor ah mid monopoly qof gaar ah uu haysto oo dadka digmeerada uusan ahayn arrintaasna waa siyaasad dawladeed ganacsataduna iyada ku shaqeysaa annaguna arrinna inaan kula shaqeyno Allah subhanahu wa ta'ala waa mahad iska leh inagu kulmiyay madashan quruxda badan oo soo qaban qaabiyeen shirkadda Samtel mar labaad iyo mar saddexaad oo uga mahadcelinaynaa kulankan quruxda badan iyo casuumaadii iyo qadadii sharafta lahayd iyo waliba wax fiican oo ay noo sheegeen oo inoo soo socda aad bay u mahadsan yihiin Samtel anigu waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay oo muddo badan ka mid ahaa macaamiisha Samtel runtiina aan faa'iidooyin badan ka helay aad baan uga mahadcelinayaa ka macmiil ahaan iyo ka mas'uul ahaanba waxaan kaloo uga mahadcelinayaa barnaamijyada bulshada anfaca oo ay hadda inoo soo bandhigeen uu ka mid yahay adeegga sida la sheegay amaahda maadaama biilku markuu kaa go'o aad xoogaa kasii amaahanaysa runtii waa adeeg aad cajiib u ah dad iska waddan tropical ku nool baan nahay oo iska kululoo biilku namaba gaarsiiyo 30